السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا Grand Online Academy. مقعي هو دكتور عبد الرزاق محمد إبراهيم وحنا هي معلنا كدي كورسدا ABC English أما Pre-Beginner English. مركا كورسدا وحيابها أتكون برندون تو حكمدا إن وحتكون برندون تا لمان قيبها كالدوين English كبلوجا. وحنا كسر بلابي دونا alphabet و ABCD يساين لو آخريويا. marka alphabetka English كانوا كسر بلابنا. That's number one. waxaan ku xigsiinaynaa letter sounds. codadkii letter sound. xarafku codka uu leeyahay. tusaale ahaan oo kale ABC, for example C, marka ay ku jirto car waxa lagu dhawaaqayaa as car. marka codadkaasaan baranaynaa. waxaan guud ahaan sixi doonaa pronunciation-ka ama dhawaaqa luqadda aad ka haysato. That's called pronunciation. marka pronunciation-kaaga meelaha khaldan Soomaali ahaan halkeenu khaladnaa taas baynu sixi doonaa. waxaynu u geli doonaa vowels-ka kuwa loo yaqaano long vowels and short vowels. Vowel waa waxa weyn Soomaaliga waa shaqalada dhaadheer iyo shaqalada gaagaaban ayaynu baran doonaa. waxaynu baran doonaa insha Allah waxaynu ereyada qaar gelin doonaa examples. waxaynu baranaa long or short vowels. examples bin gelin doonaa. examples ka wax badan ku fahmi doontaan insha Allah. marka halkan kuma soo koobi karo runtii waxyaabaha aynu course-ka ku baran doono. basically waxa laga soo qaadayaa qof English-ka aan waxba badan ka garanayn marka hore ayaad ka imanaysaa. waxaad tegaysaa qof English-kiisa iyo pronunciation-kiisa iyo dhawaaqiisu yahay perfect oo ku dhawaaqi kara luqadii si caadi ah u dhawaaqi kara oo wax khaladaadii aanay ku jirin ayaad noqon doontaa. waayahay course-kan yaa loogu talagalay. course-kan waxaa loogu talagalay qofka imika English-ka bilaabaya oo hore aan English u soo baran oo ama in yar oo wax yar oo badan hore u soo bartay laakiin imika inta ugu badan inuu qabto doonaya. ardayga maxaa looga baahan yahay marka course-dan baranayo? ardayga waxa looga baahan yahay inuu mobile haysto, smartphone inuu haysto iyo sidoo kale inuu ardaygaas internet access oo meel internet la inuu joogo ayaa looga baahan yahay. intaas oo kaliya hadii laga helo course-dan waad baran kartaa iyo inuu qofkii niyadu hayo inuu luqadii barto. waayahay waxa jira course-du markay muddada ay soconaysaa waa muddo 2 bilood ah. 2 bilood iyo wax yar buu ku soconayaa course-ku. wax badanna waad ku fahmi doontaa. 2 bilood iyo in yar buu ku soconayaa. course-du markay dhamaato maxaa ka dambeeya? waxa ka dambeeya imtixaan baa laga qaadayaa. imtixaankaas wuxuu ku bixi doonaa qaab online ah buu ku bixi doonaa. ilaalada iyo system-ka oo dhan waa wada online weeyaan. aad meesha doonto haddaad joogto online baad ku soo galaysaa. meel kastoo Soomaaliya ka mid ah haddaad joogto Somaliland, Hargeysa, Muqdisho, Boosaaso, magaalada doonto haddaad joogto waxa weeyaan waa online weeyaan imtixaanku. waxaynu xoogga saari doonaa inaynu ereyada isku xidhkooda inaynu sentence aynu dhisi karno ayaynu ku dadaalaynaa. waayahay marka qofku markuu koorsada dhameeyo muxuu qaadanayaa? shahaado qaadanayaa. shahaadaas waxay caddaynaysaa inaad koorsadaas aad dhigatay completion certificate ayaa la odhanayaa. waxa weeyaan qaabka ardayga course-dan u qaadan doonaa waxa weeyaan barnaamijka Telegram la yiraahdo ayaad ku qaadan doontaa course-dan. barnaamijkaas ayaad maxay ahayd Telegram-ka ayaa casharada kugu soo dhacayaan information-ka faahfaahsan videos-ka dambaan idinku soo diri doonaa. soo dhawaada ku soo dhawaada course-dan. aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.